mas-uuliyiintan ka tirsan maamulada galmudug iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa ku guuleystay inay kala wareejiyaan in ka badan 3,000 oo xoolo ah taas oo ay kala dhaceen maleeshiyad hubeysan mas-uuliyiinta gobolada Doolo Mudug saraakiil ciidan iyo sidoo kale odayaal dhaqan ayaa goobjoog ka ahaa madashan ay xoolaha kula kala wareegayeen maamulada galmudug iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya gudoomiye ku-xigeenka gobolka Doolo Khadiijo iyo sidoo kale taliyaha gobolka Doolo ayaa sheegay ari dhan 2479 neef oo aan ku wareejinay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee qaybta galmudug iyo gudoomiyaasha Kalisoor iyo Bandiiraley iyo odayaasha dhaqanka ee deegaankaas iyo taliyaasha ciidamada ee aaga ka howlgala annagoo ah maamulka gobolka Doolo arigaas oo maalin dhaweyto kamid ahaa xoolo halkan lagu kala dhacay iyagaan ku wareejinay waxaan rajaynaynaa ariga waxba ka dhiman tirada ka dhimanna inaan maalmahan soo socdo insha Allah aan dhameystiri doono goobtuna ay tahay Gacandhaale ayaa waxaan saacadan la kala wareegaynaa annagoo ah maamulkii galmudug iyo maamulka gobolka Doolo iyo saraakiisha ciidanka kala duwan ee gobolka Doolo ayaa waxaan la kala wareegaynaa arigii lagu dhacay aagan Gacandhaale ee labada beelood ay kala dhaceen kaasoo saacadan aan wareejinay ari dhan 2479 Ahmed Maxamed Shiro Qodaar gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Soomaalida galmudug ayaa kaga mahadceliyay mas'uuliyiinta gobolka Doolo doorkay ka qaateen sida sharafta leh oo xushmad leh oo wanaag leh oo quruxda bale isugu taxalluujiyeen xoolahaas dadka wax magaratada ah oo ay meesha ka qaadeen oo ay dawladdaas ugu dadaashay waxaan leenahay aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa waxaan la wareegnay 2479 neef baan la wareegnay awalna wuxuu ahaa arigaas 4756 baaqiga maqana waxay noo sheegeen ilaahay khayr badan ha siiyo inay ilaahay idankiis ay kura daba joogaan waxna ay hayaan inta kalena ay nagu wareejinayaan maalmaha soo socda gudahooda mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale dowlad deegaanka Itoobiya ayaa ku guuleystay in halkan ay dad xoolo dhaqataa ugu kala wareejiyaan xoolo maalmo ka hor halkan ay ka dhaceen maleeshiyad meesha calaxaashi warbaahinta qaranka ka xandhaale